السلام عليكم أصحابتي وإذن وضع السلام دمانتين بميل كستو أجوكتان maanta waxaan ka hadlayaa sharciga cusub ee kiristaha xaqa kiristaha renters right renters right oo bilaaban doona hadduu ilaahayna gaarsiiyo May kowdeeda biri hadduu ilaahayna gaarsiiyo bisha kowdeeda bilaabanayo laakiin muxuu ahaaye waxyaabaha oo dhammaanayo oo ugu eg tahay landlordka uu samayn karin waxaan ka hadlaynana waa private landlord keliya waaye private landlord wuxuu ahaaye waxyaabihii uu samayn jiray ma samayn karo hadeertanitood marka labada dhinacba sharciya la soo saaray laakiin mid ugu horeyso aan ka hadlayo waa landlordka section 21 ayuu dadka siin jiray landlordka section 21 way u dhamaatay wixii biri ka dambeeya hadduu ilaahayna gaarsiiyo laakiin hadduu tenant idin siiyo muxuu ahaayey section 21ka wixii maantadani hadduu idin siiyo taasi weli way soconaysaa muxuu ahaayey dadkii la dhihi jiray guriga 6 biloodaad deganaan kartaa ama 12 biloodaad deganaan kartaa taasaytood way dhamaatay iyadana ma idinka saari karo bilba bisha kale on rolling la dhahaa waxaan ka hadlaynaa waa private landlord kaliya waa private landlord kaliya waa ma ahan housing association iyo councilka guryahooda ma ahan waxaan ka marka hadduu guriga kaa raraayo adiga iyo landlordka waa inaad ku heshiisiin waqtiga guriga aad ka guuraysid ama uu kaa raraayo ma ahan wax asaga kaliya oo kaa rari karo ma ahan tan kale muxuu ahaaye waa in uu ku siiyo digniin oo ku siiyo oo waqtiga aad ka guurayso guriga digniin oo ku siiyo markuu kaa saarayana waa inuu sabab haysto sabab oo fiican inuu haysto oo sababta uu kaaga saarayo guriga sharci waa inuu kaaga saaraa sharciyada oo kaaga saari kara tan koowaad waxaa waaye haddii kiradaada aad dhiibi weysay meesha aad degan tahay adiga ama dadka kula degan hadday sameeyaan anti social behavior buuq iyo dhibaato ay keenaan guriga aad ku samaysaan ama agagaarka guriga aad ku samaysaan adiga ama dadka kula degan guriga dhibaato ay u geystaan guriga si xun aad guriga u isticmaashaan ama dhibaato jajabis iyo waxyaabahaas aad ku samaysaan siyaabaha kale oo kaaga saari karo waxaa waaye haddii oo muxuu gurigiisa inuu gato oo rabo guriga inuu iska gado oo rabo ama landlordka asaga inuu kusoo guuro ama familkiisa inuu kusoo guuro oo rabo guriga siyaabaha markaas waa inuu siiyo section 8 seeking possession marka hantidiisa inuu u baahan yahay warqad saas uu ku siinayo oo sharciyeysan marka section 8 kaasaytood hawshiisa waa inuu bilaabo maxkamad tago sharci oo soo maro laakiin siyaabaha hadda aan soo sheego dhan wuu kaaga saari karaa haddaad samaysid markaan soo gaagaabiyo haddii guriga aad dhibaato u geysatay kiradaada haddaad dhiibi weyso ama muxuu ahaaye buuq aad samayso xaafadaad degantaha buuqaas lagaa soo dacwoodo waxyaabahaas oo dhan waa sharci guriga la idinkaga saari karo marka asxaabta is ilaaliya video kalean soo gelinaa kan 3 daqiiqo buu ku dhow yahay insha allah soo dhawaada